Jamrad Palace waa maqaayad laga furay maanta magaalada Nairobi gaar ahaan xaafadda Kilimani. Jamrad Palace waxaa furay ganacsato Soomaaliyeed isla markaana aqoon dheeraad ah u leh dhinaca cuntooyinka maadaama Soomaalidu ay qabaan cudurro kala duwan. Jamrad Palace ayaa laga furay kasoo horjeedka Adlife amaba dhismaha ku dhegan Yaya Center. Jamrad Palace waa maqaayad gudaheeda markaad gashid aad la asqaraarayso, cuntooyinkeeduna ay yihiin cuntooyin kala duwan isla markaasna jeebku uu dhiibi karo. Qof walbana wixii ku filan ayay ku gadanaysaa, lacag ay ku qanacsan tahay. Jamrad Palace waa maqaayad hadda ka hor iyadoo kale aan laga furin magaaladani Nairobi. Waa maqaayad iyadoo kale aan laga furin Kilimani amaba gaar ahaan magaalada Nairobi. Jamrad Palace haddii aad gudaheeda gasho oo aad weydiido cuntada aad rabtid waad helaysaa. Jamrad Palace waxay kugu qancin doontaa wax walba amaba si walba ood u rabtid iyo cunto walba ood markaas xiisaynayso. Cudurkaad doonto qab, laakiin Jamrad Palace waxaad ka helaysaa cunto aad ku qanacdo dhadhan ahaan iyo tiro ahaan intaba. Jamrad Palace waa maqaayad cusub, laakiinse waxaa furtay dad khibrad u leh aadna u fahansan Soomaalida iyo gaar ahaan dadkan aan ku dhex noolnahaba. Jamrad Palace waa maqaayadii koowaad ee nuucooda kale weli aan laga furin magaaladani Nairobi, gaar ahaan xaafadda Kilimani kasoo horjeedka Adlife Plaza. Jamrad Palace